dagaal ayaa xalay ciidamada dawladda iyo al-shabaab waxa uu ku dhex maray deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo warkeena subax soo saaray ayaa ka waramaya. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal muddo kooban socday oo xalay ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. dagaalka ayaa waxa uu u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa amisom oo dhinaca iyo sidoo kale al-shabaab oo weerar ka soo qaaday. dadka deegaanka ayaa idaacadda kulmiye waxay u sheegeen in ay maqlayeen dhawaqa hubka noocyadiisa kala duwan oo dagaalka la isku adeegsaday. al-shabaab ayaa weerar madaafiic ah waxay ku soo qaadeen fadhiisamo ciidamada dawladda iyo amisom ay ku leeyihiin xaafad la yiraahdo Arbaco deegaanka ceelasha biyaha ku taala, iyadoona amisom dhankeeda ay ku jawaabtay hub culus sida ay dadka soo warinayaan. warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dagaalka, kuwaasi oo sheegaya in tiro dad ah ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, balse ma cadda tirada rasmiga ah ee dhimasho iyo dhaawac ay dagaalkii xalay ka dhashay. dagaalka ayaa sidoo kale intii uu socday waxaa jirtay in sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka madaafiic laga soo tuuray qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose, kuwaasi oo ku dhacay halka ay degan yihiin ciidamada Midowga Afrika ee amisom. saraakiisha ciidamada dawladda ee deegaanka ceelasha biyaha iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee deegaankaasi si guud ayaanan weli ka hadlin dagaalkii xalay ka dhacay.